بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. soo dhawaada arday darsiga 12 ayaan halkan ka guda gelaynaa oo ka mid ah kitaabkeena duruusul lugha al-arabiyya li ghayri an-naatiqiina biha, gaar ahaan juska koobaad. casharadii hore haddii aad danaynayso waxaad ka heli kartaa channelkan. haddii aad nagu cusub tahana waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirtid sidii duruusta ay ku soo gaaraan adiga oo taabanayo subscribe. aad iyo aad u mahadsan tahay. درسiga 12 wuxuu ka hadli doonaa damaa'irtii qaybo ka mid ah. sheekhu dhowr darsiba wuxuu uga hadlay damaa'irta maxaa yeelay ahmiyad gaar ah ay leeyihiin. darsigan waxaan ku bari doonaa damaa'irta mukhaadabka ah oo lala hadlaayo lab iyo dhidig nooca ay yihiinba, sidii qalamuka iyo kitaabuka iyo kayfa xaaluka iyo waxyaabaha la midka ah. sidoo kale damaa'irta oo munfasilka ah, kuwa muttasila loo yaqaanaahe, kuwa munfasilka ahna qayb ka mid ah baan qaadan doonaa, sidii ana bikhayrin, ana iyo anta iyo kuwayowgaana waa arki doonaa. darsigan waxyaabaha aan ku arki doono waxaa ka mid ah ismul mawsuul allati, isimka la yiraahdo ism mawsuul waxaan hore u soo aragnay alladhi oo labka loo isticmaalo. imikana waxaan arki doonaa allati oo dhidiga loo isticmaalo. tamaam. darsiga 12 intaan ayaa ugu muhiimsan. waxyaabaha kalena markii aan dul tagno ayaan tilmaami doonaa insha Allah taala. nabda'u ala barakatillah fataabi'u ma'ana. الدرس الثاني عشر درسiga 12 سعاد baa waxay dhahday assalaamu calayki waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waxay salaamaysaa gabar ayay salaamaysaa. marka gabar markii lala hadlaayo kaafka waa la hoos dhigaaho assalaamu calayki baa la yidhaahdaa. ama salaamta sharciga markii laga hadlaayo lab iyo dhidigba, mufrad iyo mudakarba, waxaa la leeyahay assalaamu calaykum. laakiin hadda maadaama damiirkan aan rabno inaan barano baa hadda nagula tusayaa. laakiin qof markii ka hor timaado assalaamu calayki ha dhihin dumarka, labkana assalaamu calayka ha oranin. waa ka baabu tacliim aan hadda joognaa. maadaama hal gabar lala hadlaayo waxaa la dhahay sucaad waxay dhahday assalaamu calayki waraxmatullaahi wabarakaatuhu. albintu gabadhii ayadoo salaanta ridinaysa waxay tiri wacalayki assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. wacalayki dhidiga marka kaafkaa loos dhigaa markii lala hadlaayo. waayahay. kayfa xaaluki yaa bintu, sidee xaalkaadu yahay gabaray. gabadhii waxay dhahday ana bikhayrin walxamdu lillaah, anigu khayr ayaan ku suganahay, allah ayaana mahad iska leh. ana damaa'irtii ka mid aheeday munfasilka loo yaqaano. min ayna anti, waa ka kayfa xaaluki kaafka waa hoos dhignay. min ayna anti, anti baan leenahay maadaama dhidig aan la hadlayno oo gabadhii baa lala hadlayaa. min ayna anti halkay ka soo jeedaa. gabadhii waxay dhahday ana min arriyaad, waxaan ka soo jeedaa riyaad. masmuki magacaa. su-aal kalaa la weydiiyey. masmuki kaafka waa hoos dhigaynaa. dhidig dhan haddaa aragtid masmuki, kitaabuki, ayna anti, min ayna anti, waa ka saas isticmaal. waxay dhahday marka ismii aamina, magacaygu waa aamina. ayna abuuki, aabbaha halkee ayuu ku sugan yahay. abii hunaa fi lmadiinati almunawara, aabbahay halkan ayuu ku sugan yahay magaalada madiinatu almunawara. huwa muwajihun fi lmadrasati athaanawiya, waxau muwajih ka yahay amba murshid amba qofka hago oo macalimiinta yani hago ayaa la yiraahdaa muwajih. kaabaa la yiraahdaahe wuxuu ka yahay fi lmadrasati athaanawiya, dugsiga sare. waa ka almadrasa athaanawiya waa dugsi sare. wa ayna ummuki, hooyadaana halkay ku sugan tahay. waa ka kaafka waan hoos dhigaynaa mar walbaba dhidig maadaama aan ka hadlayno.
waxay dhahday hiya aydan hunaa aydana sidoo kale halkan ayay ku sugan tahay hiya tabiibatun waa dhakhtarad fii mustashfa alwilaadati isbitaalka dhalmada waman haadihi alfataatu gabadhan dhallinyaradan ayay tahay allatii taasoo macaki adiga kula jirto macaki soo ma jeedid kaafka iska hoos dhigay ahiya ukhtuki ahiya dhidiga hiya loo isticmaala ahiya ayadu ukhtuki walaashaa miya laa maya hiya bintu cammi waa adeerkay gabadhiisa masmuhaa magaceed masmuhaa aan leenahay waa ka tan waa soo aragna marka ismuhaa beytuhaa horaa u soo aragna maxaa la leeyahay marka ismuhaa faadimatu magaceeda waa faadimo ahiya zamiilatuki ma gabadhaad wax isla dhigataanba laa maya anaa fi lmadrasati almutawassida anigu waxaan dhigtaa dugsi dhexe wahiya fi lmadrasati thaanawiya aydana waxay dhigataa dugsi sare marka zamiil ma nihin zamiilka ilaa waxaan ku soo sheegnay ardada waxbarashadu ay ka dhaxaysa aan ku soo sheegnay alaki ukhtun walaal ma leedahay ukhtun waa ukhtuda waa dhidiga markay tahay walaasha dhidigaa baa la yidhaahdaa laa maya maali ukhtun wax walaal ah malihi alaki akhun walaal ma leedahay nacam haa lii akhun kabiirun waxaan leeyahay walaal weyn wa huwa taalibun biljaamica waa arday dhigta jaamicadda waman haada tiflu cunugan ayuu yahay alladii kaasoo macaki adiga kula jira darsiga koobaad sawirkiisa fiiri cunugaas midkaas yariiskaa waayo sawirka nooga muuqdo darsiga bilowgiisa markii aan soo arkayna sawirkaan aan soo aragnay halkaa maxaa kaaga muuqda marka cunug yariisa cunugaasaa marka la weydiinayaahoo waxaa la leeyahay waman haada tiflu cunugan ayuu yahay alladii kaasoo macaka kula jira waxay dhahday huwa bnu akhii waa walaalkay wiilkiis masmuhu magaciis ismuhu sacdun magaciisa waxaa la yidhaahdaa sacd ayaa la yidhaahdaa a ummuki fi lbeyti alaana hooyada ama guriga ay ku sugan tahay imika laa maya dahabat ila almustashfaa waxay aaday isbitaalka markii dhidiga laga hadlayo ta'daasaa lagu kala saaraa labkii dhidiga ta'daas waxaa la yidhahdaa dahabat la xiriirta taa'u ta'niis baa la yidhaahdaa markii lab laga hadlayo lama yacni lalama xiriiriyo ficilka markii dhidiga un baa lala xiriiriyaa hadda ayna abuuka fi lbeyt haddii la dhihi lahaa laa dahaba ayaan odhan lahayn marka taadaasi calaamatu ta'niis aa la yidhaha tamriin aana ka arki doonaa tamaariin marka laylisyaalo qaybta koobaad iqra waktub akhri qorna waa ka waaxid kayfa xaaluka yaa abii waa lab markaan kayfa xaaluka kaafka waan kor dhigaynaa maadaama qofka lala hadlayo lab uu yahay aabow xaalkaadu waa sidee labo markaana hooyaa lala hadlayaa maxaa isbedelaya u fiirso kayfa xaaluki yaa ummii hooyo xaalkaadu waa sidee saddex ayna bnuki yaa zaynabu zaynabow wiilkaadii aaway dahaba ila almasjidi masjidka ayuu aaday waxaa laga hadlayay wiilkii soo ma aha maadaama wiilka laga hadlayay dahaba ayaan leenahay ficilka calaamadda dhidiga ma la xiriirinayno dahaba ila almasjidi arbaca ayna bintuki yaa aamina aaminoy gabadhaadiina aawe markaana maxaan leenahay maadaama gabar lagu weydiiyey dahabat ta'wiyal ila almadrasati madrasada ayay aad shan liman haadihi saacatu ljamiila saacadan qurxoon yaa iska leh ahiya laki yaa faatima adiga miyaa iska leh faadimoy ahiya saacaddu waa dhidig ahiya faadimana waa dhidig laki dhe marka ahiyane dhidig ka dhig kaaful khitaabkaasne waxaad ka dhigtaa dhidigo ahiya laki yaa faadima saas dheh ahiya iyadu laki adiga miyaa iska leh yaa faadima faadimoy faadima waxay dhahday nacam hiya lii haa anaa iska leh lix ahaadaa qalamuka yaa muxamed kani ma qalinkaada muxamedow laa haadaa qalamuka anta maya kani waa adiga qalinkaada
سو ما جيت هذا قلمك يا محمد لا هذا قلمك أنت ولب مركان تضبط تلك السيارة الجميلة كاريغاسي قرحون التي تاسو خرجت بحذي الآن إمك من المدرسة مدرسة كبحذي للمدير معمولها إسكاله التي وكا ديدك ما دام إيتا سيارة التي بعلى استعمالي سيديت أنت مهندس يا أخي ولالك يو إنجينير مياتهاي لا ميا أنا طبيب وحانا هاي دكتور سقال أنت طبيبة يا أختي موحاتهاي دكتورات مياتهاي ولا شيء لا أنا مدرسة وحانا هاي معلمة قيبت أسأل كاسين وقول ماتا قيبت اللبات تمارينك اقرأ كل جملة من الجمل الآتية ثم اقرأها مرة أخرى بعد تغيير المنادى كما هو موضح في المثال وحال هي اقرأ أخي كل جملة جديدة ومن الجمل الآتية جملتها سوسعد كمدا ثم اقرأها ديتنا أخرى مركلة مع تغيير المنادى مركي بدشد منادها كذب مع تغيير المنادى متكلون نادينايو أديقو بدلايو معناه كما هو موضح في المثال سيدة تسالها الأكوعد تسالها في رمر مثال تسالة أين قلمك يا أبي أو قلن كادي أبو وكا مركان يا أبي واي منادها للشيء يا أبي إذا اسبدل كذب أخري على مرك إيه وحبا اسبدل هاي صومها وحبا اسبدل هاي أفيرس مركان ولا قاقش شغيه مر لبعد مركان كل لابنو منادهنا أن بدلنا يا أبي أنكو بدلنا يا أمي هل كان أنكو قرنا مرك محانا صباحايو أين قلمك أين إهد أصلا هل كان محانا صباحايو أين قلمك يا أمي هاي قلن كادي أو قلمك على قرب مركان مادام ديدك لا هذا الله واحد عندك قلم يا محمد قلن مياه أكتادا هذا محمد قلن مياه هي ستابع لولا جيداه محان لنا مركا عندك قلم يا آمنة عندك مركي منادها لبدله يعني ضمير كانوا اسبدليا واكا هذا اللب أيو مركانا ديدك بونقونيا لبكا كافكا ولا كرديغا ديدكنا ولا وصديغا اسكفيرها محان لنا مركا عندك قلم يا آمنة آمنة يقال المياه هيسته لبو أين بيتك يا أستاذي أو قرقادي هالكيكو يا معلن كيجيو وبدلينا أفرسه أين بيتك يا أستاذتي قرقادي هالكيكو يا معلمة ديداي سيدح أهذا الدفتر لك يا علي علي وبوغان أديغ مياه اسكاله أهذا الدفتر لك يا فاطمة فاطمة يبوغان أديغ مياه اسكاله أفر من أين أنت يا أخي هل كيك سوجيدا ولا الكيو من أين أنت مركان أنت إياد مهنو من أين أنت يا أختي ولا شيء الكيك سوجيدا شان أين أبوك يا خالد أبها أو خالدو أين أبوك يا خديجة أبها أو خديجة لح أأنت مريض يا خالي أبتغي يوم حنونسان تهي مد حنونسان مياتهي أأنت مريضة يا خالتي مركان مفيرسو أأنت سوماها مركي خالة لغاها الله هبرير مركي لغاها الله أأنت والليها كو مريض نما لورنا ايه تألو يليا وحسوب عيسى مركا أأنت مريضة يا خالتي بانو صبحيس تضبو أين بيتك يا عمي قرقا ذلك يا لا أذيركيو هدي لبدلو وحين نقول إيسا أين بيتك يا عمتي إدو قرقا ذلك يا لا سيديد ألك أخ يا حامد حامدو ولا المليضة هاي ألك أخ يا سعاد ألك أخ يا سعاد بين قنيسة سقال ماذا عندك يا أخي
maxaa agtaada ahaaday maxaa haysaa walaalkayo maadaa cindaki yaa ukhti 10 assalaamu calayka yaa abi assalaamu calayki yaa ummii tamriinka saddexaad annis ilfaacila fi kullin min aljumal alaatiya faacilka dhidi ka dhig baa lagu dhahay faacil muxuu yahay faacilku waa ficil sameeye ficilka dhacay midka sameeyey baa faacil la yidhaahdaa daraba muxammadun muxamed baa garaacay garaacitaan waa ficilka la sheegayo garaacitaankaas yaa sameeyey muxamed baa sameeyey muxamed baa marka wuxuu noqonayaa faacilkii marka faacilkaasi dhidig ka dhig faacilka markii dhidig laga dhigo iyo markii lab laga dhigo farqiga u dhaxeeya baa horta tusaalaha koobaad lagugu barayaa tusaalahan fiiri marka misaal kharaja muxammadun min albayt muxamed wuxuu ka baxay guriga markaan faacilku waa muxamed waa lab soo maaha markii uu faacilku lab yahay ficilkiisa waxba lala xiriiri maayo ta lala xiriiri maayo waa kaa si fiican u baro qalbiga waxaa weeyaan inaad ku qabatid baa lagaa doonayaa kharaja muxammadun min albayt kharaja ficilkii sidiisii weeyaan ficilku wuxuu ka kooban yahay kha ra iyo jim waa kaa waxba laguma darin ficilkii lab markii aad isticmaalaysidna sidaa yeel waxba ha ku darin waa yahay kharajat aaminatu min albayt markaana faacilkii waa aamina aamina waa dhidig maadaama aamina dhidig ay tahay ficilka waa inaan u yeelnaa ta waa inaan u yeelnaa calaamadii dumarka lagu garanayay waa inaan u yeelnaa ilaa faacilkii baa wuxuu noqday dhidiga waa ka ta'daasi calaamatu ta'niis baa la yidhaahdaa sida asalkaa way reeban tahay mararka qaarkood waa dhacdaa in la hoos dhigo ayadana waan arki doonaa wayno imaan doontaa laakiin aslan markii la dhaho asal ahaan waa la reebayaa sidii kharajat aaminatu min albayt oo kale kuwayogan markaan iskala shaqayno waaxid dhahaba almudarisu ila alfasli dhahaba almudarisu macallinku wuxuu aaday ila alfasli fasalka waa ka haddii aan bedelno maxaa noo soo baxaayo dhahabat almudarisatu ila alfasli baa noo soo baxaysa macallimadii waxay aaday fasalka dhahabat baan ka dhigaynaa almudarisna almudarisatu baan ka dhigaynaa ila alfaslina sideedaan usoo qaadanaynaa intaa haddaa samaysid waa ka shaqaysan tahay mumtaas laba marka fiiri dhahaba abii ila almustashfaa aabbahay wuxuu aaday isbitaalka dhahabat ka dhig marka abiina maxaan ku bedelaynaa ummii dhahabat ummii ila almustashfaa hooyaday waxay aaday isbitaalka saddex jalasa aalibu fi lfasli ardaygu wuxuu fadhiistay fasalka waa ka jalasati aalibatu fi lfasli ardayadu waxay fadhiisatay fasalka arbaca kharaja akhii min albayt walaalkay wuxuu ka baxay guriga tamriinka afraad waxaa lagu barayaa ta'da aslan waxaan dhahnay waa in la reeba taa'u ta'niis assaakinah baa la yidhaahdaa mararka qaarkood marka yani la hoos dhigaya baa lagu barayaa waana noogu jirta hadda jalasa taalibu markaan taa'u ta'niis la xidhiidhinayno maxaan dhahnay jalasati taalibatu markaan waa hoos dhignay ta'di jalasati taalibatu ayaan dhahnay marka maxaa loo hoos dhigay baa halkan lagugu barayaa fiiri marka ta'amal maa yali si fiican u fiiri waxa la xiriira jalasati taalibatu hadda jalasat iyo ataalibatu halkan noogu qoran waa yahay ta'dan waa reeban tahay ataalibatu hamzadaasi hamzatul wasli waa laguma dhawaaqo haye laamkiina wuu reeban yahay marka jalasat iyo laamkii oo reeban oo la iskula dhawaaqo ma soconayso sidaa ajligeed marka waxaa loo bedelayaa labadoodii midka hore ayaa la hoos dhigayaa waxay noqotay marka jalasati taalibatu ardayadii baa fadhiisatay bay noqotay qaacidada marka waa tanaa xaraf reeban waa kaa iyo al haddii ay kulmaan ayan kaana hadda ta'a laakiin booskeeda joognahay ta'dii oo reeban waa tanaa
al ayaa la xiriirsatay hamzadan laguma dhawaaqo saa hore u soo aragnay marka ta'diina waa reeban tahay laamkiina waa reeban yahay laba shay oo reeban waxa waa culaysa ka yimiday sidaan haddii ay dhacdo shayga oo haddii alla ku idmaayo xarafka ka horeeya laamka xarafka ka horeeya baan hoos dhigaynaa hadda booska maxaa noo jooga marka ta'dii baa noo joogto ta'dii la iska hoos dhig waa ka wabillahi tawfiiq waa ka shaqaysaba jalasat iyo waxaa ku kulmay iyo at-taalibatu jalasati at-taalibatu dheh jalasati at-taalibatu kharajati at-taalibatu waa ka naamati at-taalibatu ta'da iska hoos dhig waxaa la yiraahdaa marka iltiqaa'u saakinayn baa la yiraahdaa laba reeban ayaa kulmeen mumtaaz qaybtaas halkaasaan kaga gudbaynaa inaad fahanteen baan rajaynayaa tamriinka shanaad iqra iljumal alaatiya jumladahan soo socda akhri halkaana waxaa lagu barayaa ism mawsuul alladii hore aan usoo aragnay iyo allati waaxid man ilfataa yow yahay midka dhalinyarada alladii kaasoo kharaja ka baxay min beytika gurigaada al'aana imika huwa ibnu cammi waa in adeerkay laabo man ilfataatu gabadha dhalinyaradan ayay tahay allatii baan leenahay alfataa waa lab alfataatuna waa dhidiga waa gabadha dhalinyarada ah marka alfataana alladii isticmaal alfataatuna allatii isticmaal waa ka qasadka dhanba darsigan tamriinkan aan ka leenahay waa intaas allatii taasoo kharajad ka baxday min beytika gurigaada al'aana imika yaa muxamedow gabadha dhalinyarada ah oo imika gurigaada ka baxday yay tahay hiya bintu khaalatii waa habaryartay gabadheedii weeyaan tamriinka saddexaad liman ilmiftaaxu furaha yaa iska leh miftaax waa lab alladii dhamarkahe alladii cala almaktabi kaasoo miiska dul saaran huwa lilmudarrisi macalinka ayaa iska leh arbaca liman isaaca saacadda yaa iska leh allatii taasoo cala asariiri sariirta dul saaran hiya lizawji ukhtii walaashay ninkeeda baa iska leh lix akmil dhamaystir aljumal alaatiya jumladaha soo socdaa biwadci ismi mawsuul adigoo dhigaya ismi mawsuul oo munaasib ah oo ah alladii amba allatii fil faraaqi meelaha bannaan waa sahlan tahay oo lab haddii aad aragtidna alladii dheh dhidig kolka aragtidna allatii dheh waaxid alkitaabu alladii dhamarka cala almaktabi lilmudarris kitaabka oo miiska dul saaran macalinka ayaa iska leh labo alqalamu alladii dheh asigana waa labe في حقيبتي بورسديدا كدخ جيرو مكسور وجبن يحي السيارة التي خرجت من المستشفى الآن إيميكا اسبتالك كبحدي وحا اسكله للطبيب الجديد دكتورك عسب أفر الكلب الذي في الحديقة مريض إيغا أو كدخ جيرو بيرتو جيران يحي شان ويحي الفتى الذي خرج من المسجد الآن ابن المؤذن midka dhalinyarada kaasoo ka baxay masjidka imika waa mu'adinka wiilkiisi weeyaan ibnul mu'adin lix tilka albatta booladaas allatii taasoo taxta shajarati geedka ku hoos jirta libinti alfallaax beeralayda gabadheeda ayaa iska leh todobo albeytu aljadiidu guriga cusub alladii fii dalika ashaarici kaasoo waddadaas ku yaallo lilwasiiri wasiirka ayaa iska leh sideed addarsu cashirka alladii kaasoo bacda haada darsi cashirkan ka dambeeya sahlun jiddan aad ayuu u sahlan yahay sagaal man ilfataatu gabadha dhalinyarada ayay tahay allatii taasoo jalasad fadhiisatay amaama almadrasati madrasada horteeda hiya taalibatun min maleesiya waa ardayad maleesiya ah toban atilka alxaqiibatu boorsadaasi allatii taasoo taxta almaktabi miiska ku hoos jirtaa laka adiga miyaa iska leh yaa khaalidow laa maya hiya lisadiiqi muxamed saaxiibkay muxamed ayaa iska leh waa ka halkaa marka wixii dhidigane allatii dheh wixii labane alladii dheh waa isku dhammaatay intaas bisaa lagaa doonaya alkalimaat aljadiida kelimadaha cusub ee darsiga alcamu baa ka mid ah
العم وأدر، أخو الأبي وأبو والالكيس، الخال أخو الأم وهوي والالكيت، الفلاح وبيرليد نينك، العمة وإيدو أخت الأبي وأبو والاشيس، الخالة أخت الأم وهوي والاشيد، مستشفى الولادة وإسبتالك دالمدوية. درسينا هلكاسو كو اغيهي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.